martial law waa soo rogidda la soo rogo xaalad degdeg ah oo ay soo rogto dawlad ama daciiftay ama lagu kacay oo xaslan weyday xaaladda amniga ee waddanka gudihiisa ah. macnaheedu wuxuu noqonayaa marka martial law hay'adaha amniga security ama booliiska oo si military u dhaqmay ama military iyo booliis iyo isu bedelay military labadaba ama sirdoonka iyo labadaba shaqadoodii la wada wareegay. marka haday maxkamada noqoto, haday garsoor noqoto, haday amnigi xasilintiisa noqoto. waa qaabkii dawladda ee rayidka ahaa oo loo rogay qaab militarized system ah. imise jeer ayaa Soomaaliya horay loo adeegsaday sharcigaas goormo ayaysan ahayn? martial law waxaa Soomaaliya la soo rogay hadda kii u dambeeyay isbuuci la soo dhaafo waa kii saddexaad. waxaa ka horreeyay 2 jeer oo hore. markii koowaad waxay ahayd markii laga soo baxay dagaalkii 77 oo dawladdii ama taliskii xukunkii militariga ahaa oo dareemay qalqal iyo qalalaase waddanka gudihiisa ah iyo mucaaradad xoog leh oo dadkii hamigii u haminayeen in dhulkii Soomaali galbeed gacantooda la soo geliyo. bijabkii ku dhacay ciidanka dhibaatadii xoog lahayd ee gaadhay ee ka soo gaadhay gudaha Soomaali galbeed markii la galay laguna soo jabay dhinacii siyaasadda lagu fashalmay iyo dawladnimadiisii militarigeennuna xoogiisii ku soo baaba'ay qalab wixii aan lahayn iyo wixii oo dhan oo mucaaradad gudihii bilaabatay in talisku meesha ka baxo dadkii uu ku guuxay inkastoo la hadli karin oo media jirin, jaraa'id jirin, radio jirin, meel dadkii ay shucuurtooda ku cabiraan jirin. laakiin dadkii public discourse-goodii banaanka uu yaalay waxa ay dadka dareenkoodu yahay in wixii isbedel dhaco oo ay dhici weyday ayaa taliska militariga ku soo rogay waddanka xaalad martial law ah. qaasatan waxa markii ugu horreeyay lagu bilaabay lagu apply gareeyay gobolkii loo yaqaanay Waqooyi Galbeed oo ay caasimad u ahayd magaalada Hargeysa. dadku inaysan shacabkii wixii maqribka ka dambeeyay aanay socon karin waxa la soo rogay system يعني xaafaduhu ay dadka isreport gareynayaan. xaalad waxa la geliyay governorka militariga ah meesha joogay General Gani oo noqday asagu kii commissioner-kana ah militariga commander-koodina isku ah wixii oo dhan isku qabsaday. marka xaaladaas ayaa ugu horeysay oo la geliyay. waxa ku xigay oo isla taliska militarigu waa sii waday markii dambe gobolka Mudug geliyay magaalada Gaalkacyo. marka military regime-ka ugu horeeyay in martial law la soo rogo waxaa ku soo xigay 2007 January oo xukunkii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi ay ku soo rogeen dhulka ay ka talinayeen. way isku dayeen inay Muqdisho ku rogaan waa awoodi kari waayeen laakiin Baydhabo iyo hareeraheeda intii ay joogeen. laakiin Muqdishona mucaaradad xoog leh lagu kacay oo dadkii aysan Etoobiyaankii soo gelidooda ay ku diideen. marka tan hadda dhacdo waa markii saddexaad oo waddanka la geliyay. martial law meel kasta oo taariikhda adduunka haddaad akhriso waxay ka soo bilaabeen gumaysiga meelihii ay doonayeen inay qabsadaan ayay ku bilaabeen. taariikhdiisu taasay la bilaabatay wadamadii la qabsaday Australia iyo meelihii la tagay oo cadaanka Ingiriiska ku duulay iyo Faransiiska intaba way rogeen laakiin wax faa'iido ah oo laga gaaray ma jiro. soo rogitaanka martial law la soo rogana waxa lagu dhex aqriyaa waxa uu ku dambeyn doono inay tahay burbur iyo baaba. mar haddii xukun jira ama talis uu maciinsado martial law macnaheedu wuxuu yahay inay xaaladii faraha ka baxday oo uu xasilin kari waayay amnigii loo igmaday inuu shacbigii siiyo ammaan. dawlad sideedaba shaqada ugu horeeya ee laga rabo waxay tahay security provision oo ah in dadka ay ammaan gelin karto. laakiin Soomaaliya bilcagsi waxaa maanta la hayaa Muqdisho dawlad ayada amnigeedii ay hayaan ciidamo ajnabi ah sida AMISOM inay ayadu siiso security dadka iska daa kaba fakari. ayadii ayaa amnigeeda meesha ka baxaya haddii African Union ama AMISOM kuwa loo yaqaano ay meesha ka baxaan ama taageerada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo quwadaha meesha jooga ee ka caawinaya dhinaca militariga ay kala tagaan. marka martial law waxa uu nagu hagi doonaa ama horseedi karaa haddaan taariikhda ay 10 ka baranayno baaba iyo burbur iyo dhibaato xoog leh. marka sida ugu habooneed waxay ahayd iyadoo martial law la maciinsan 2 sano kadib haddii dawladdii la doortay February 2017
ay ku fashilantay 2 sano kadib inay ammaan dhaliso inay is casisho hadday dad wadaniyiin ku jiraan inay ummadda Soomaaliyeed cafis weydiistaan